maamulka sare ee isbitaalka Siraaj ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa soo bandhigay adeegyo cusub oo ay ku soo kordhiyeen isbitaalkaasi kuwaasi oo kala ah waarkii dhalmada hooyada shaybaar casri ah daaweynta cudurrada guud caruurta daaweynta ilkaha afka iyo rugta duugista jirka adeegyadani uu soo kordhiyay isbitaalka Siraaj ayaa kuwa ay baahi weyn u qabeen bulshada gobolka Togdheer Dr. Yusuf Farax Ali Yusuf waa dhakhtarad ku takhasusay xanuunada hooyada iyo dhallaanka waxaana ka soo qalin jabisay jaamacad ku taala dalka Yemen waxaana sharaxaad ka bixinaysaa adeegyadani oo isbitaalkani uu qabanayo bulshada gobolka Togdheer oo ah kuwa ay baahi weyn u qabeen dadweynaha magaalada Burco. Welcome مركز السراج بأخدمكم من كل قلبي. مركز السراج المتوفر الآلات العصرية التلفزيونات والمختبرات والآلات التدليكية تقبلوا منه واقربوا ونخدمكم بكل جهودنا وكل وفاء والإخلاص نخدم عليكم. مركز السراج. دكتور فرح علي يوسف ودكتورات كنت تخصصتي جينيكولوجي iyo برياتري kasoo baxday jaamacadda Leelo Culuum iyo Tiknoolajiya oo ku taala adan iyadoo takhasus u leh haweenka iyo caruurta dhamaan dadweynaha reer Burco dadweynaha Soomaaliland aad baan horta ka soo dhaweynaa waan u soo dhaweynaa farmasiga caanka ama kliniga caanka ee Siraaj Pharmacy maternity ward isoo kala qaybtii ilkaha waxa aan joogaa dhakhtarad ka timi wadanka iyo Yemen oo ku takhasustay dumarka iyo ciyaalka runtii dad badan oo shaqeynaa reer Burco waa dhakhtar Burco u baahnayd waa klinig Burco u baahnayd waxyaabaha dawooyinkan waxayna waxa kamid ah dawooyin badan oo ka yimid wadamada qurbaha sida Faransiiska Jarmalka UK dawooyin waxa dadka siinaa dawooyin tayo leh sidoo kale dadka waxaan u qabanaa adeega waxa la waxay dumarka adeega gynecology u baahan yihiin ama dumar iyo ciyaal khuseeya iyo pediatriga sidoo kale waxa naga furan waarkii dhalmada dumarka oo ah waarkii la dhigay dumarku ku mulayeen sidoo kale waxaan dhawaan furi doonaa noo socda qaybtii ilkaha waxaan si aad u soo dhaweynaa dhammaan shacabweynaha ku dhaqan gobolka Togdheer anagu waliba qiimo dhimis aad u sameeynaa sidoo kale waxa aad wiiga soo socda insha Allah ilaa bisha kowda wixii ka bilaabma waxaan bilaabi doonaa inaan kaarka bilaash uga dhigno muddo ilaa soconayso 10 cisho 10 cisho kaarkoodu inay free yihiin dadka wixii jiricsan aad baan uga adeegnaa qaar ka mid ah dadkii lagu daaweynaya isbitaalkani ayaa dhankooda ugu baaqay bulshada reer Burco inay ka faa'iideystaan adeegyadani uu bixinayo isbitaalkani waxaana ka mid ah hadaladoodii sida tan aniga oo magacaygu yahay Alisa Cabdi Maxamed waxaan halkan uga iclaaminayaa in dhakhtarkan Siraaj Medical Center aanu maxaan ku sheegay uu yahay dhakhtar caalami ah waxa joogta khayr Allah siya doctorad ka timi wadanka Yemen oo wax ku soo baratay jaamacadda Sanca takhasusna u leh dumarka iyo caruurta iyo cudurrada guudba magaceedana Farax ayaa la yiraahdaa Dr. Farax baa la yiraahdaa maxaan ku sheegay waxaanu ka helaynaa shaybaarkii oo casri ah oo qalab casri ah yaalo waxa laga helayaa farmasiga oo dawooyin ay nooc yaalaan oo caalami ah dad aad u fara badan oo runtii run ahaantii aanu keenay ama dad badan keeneen oo Ilaahay shifa iyo caafimaad ka siiyay baa jooga annaguna alxamdulillah rabbil caalamiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa doctorada khayr Allah siiyay sidee u caawisay beeshinkeeda iyo dadkeeda shaqaalaha jooga ee meesha jooga waa shaqaale firfircoon oo si hagar baxsan kuugu shaqeynaya qaybta umulisada qaybta maxaan ku sheegay dumarka caruurta mid walba aad iyo aad ay ma sha Allah tabarakallah ay ugu dambeyntii isbitaalka Siraaj ee magaalada Burco ayaa ah mid ay yaalaan dhammaan qalabkii caafimaad ee loo baahnaa waxaana uu ku yaala xaafadda Seylada ee magaalada Burco Cabdullaahi Maxamuud Muuse Xudayfi telefishinka caalamiga Ariel Burco.